السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياشين قيمها يقاهر نغمدا meel kasta joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub. Muuqaalkan insha Allah waxaad ku daawan doontaan nin furinaag aanu qabin iyo qaabka ay ku dhacday. Balse marka hore daawada haddii aad tahay saaxiibka cusub channelkeena xigmadyahan waxaan ka codsanayaa inaad subscribe noo saarto sidoo kale aad furto gambeelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya mar waliba hela muuqaaladeena cusub. Sidoo kale ha hilmaamin like, share iyo comment inaad siiso muuqaalkan. Mahadsanid weligaana guuleyso. maalin maalmaha ka mid ah ayaa naag waxa ay timid goob ay ku kulmaan dad ganacsato ah oo ay isku dhaafsadaan alaabo ganacsi iyo raashin xoogaa yarna ay ku nastaan. nin ka mid ah raggii goobta fadhiyey ayay gacanta u taagtay. ninkii ayaana soo kacay oo soo aaday xaggeeda wuxuuna weydiiyey waxa ay rabto. naagtii ayaana tiri, waxaan kaa rabaa inaad hawl ii qabato, waxaana ku siinayaa 20 diinaar. ninkii ayaana weydiiyey waxa ay tahay hawshu, waxayna ugu jawaabtay, ninkayga waxa uu aaday jihaad alla dartii ah wuxuuna iga maqan yahay 10 sano ilaa iyo haddana ma soo noqon, warna kama helin muddadaas. ninkii ayaa yidhi ilaahay dib ha u soo celiyo isagoo caafimaad qaba, sidoo kalena soo qaniimaystay. balse waxay ku tiri, laakiin aniga waxaan rabaa inaad ii raacdo qaadiga oo aad u sheegto inaad tahay ninkayga, kadibna aad i furto, waayo waxaan rabaa inaan u noolaado sida ay u nool yihiin haweenka kale oo asaagayga ah. ninkii ayaana ku yidhi, waan ku raacayaa. isla markiiba way dhaqaaqeen, waxayna aadeen maxkamaddii, waxayna hor joogsadeen qaadigii. naagtii ayaana bilowday hadalka, waxayna tidhi, garsoore, kani waa ninkayga, wuxuuna iga maqnaa muddo 10 sano ah, wuxuuna rabaa inuu i furo. qaadigii ayaa weydiiyey ninkii inuu yahay naagta ninkeeda iyo in kale. ninkii ayaana yidhi, haa, oo waa naagtayda, waxaana rabaa inaan furo oo aan kala tagno. qaadigii ayaa sidoo kale weydiiyey naagtii inay raalli ka tahay in la furo, waxayna ugu jawaabtay haa. qaadigii ayaana yidhi, hadday sidaa tahay fur. ninkii ayaana ku yidhi naagtii, waad furan tahay. naagtii ayaana dhoolla caddaysay iyadoo leh, garsoore, ka warran ninkan wuxuu iga maqnaa muddo 10 sano ah, kumana haysan masruuf iyo daryeel. waxaan rabaa xaqii aan ku lahaa muddadaas iyo xaqa furiinkayga. qaadigii ayaa canaantay ninkii oo ku yidhi, war maxaad uga tagtay naagta oo aad uga maqnayd muddadaas haddii aadan masruufaynin? ninkii ayaana dareemay inuu belo faraha la galay oo uu ku degdegay waxaanu ka fiirsan, wuxuuna si hoose naftiisii ugu yidhi, haddii aan inkiro naagtan waa la i garaacayaa, xabsigana waa la ii taxaabayaa. wuxuuna ku yidhi qaadigii, waan mashquulsanaa muddadaas aan ka maqnaa naagtan, waana soo gaari waaye. balse qaadigii ayaa ku xukumay ninkii inuu bixiyo 2000 diinaar oo ah xaqa ay ku yeelatay naagta. ninkii ayaana bixiyey lacagtii isagoo dhibsanaya, wuxuuna ka soo baxay maxkamaddii. balse naagtii ayaa ka daba timid oo siisay 20 diinaar, taasoo ahayd lacagtii ay ka ballan qaaday goor hore haddii uu u adeego.